عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي والله السلام يا marka hore Ramadaan Kariim waxaan rabaa maanta inaan idin sheego waxaa jira barnaamij ruuxaantii adduunka oo dhan qabsaday waliba dunida islaamka kaas oo ah barnaamij tabarucaad ah oo dadka muslimiinta meel kasta joogto lagu tabaruco wax lagu gaarsiiyo barnaamijkaas ruuxaantii waa barnaamij ka jira dunida islaamka oo xataa wadamay ka mid tahay Soomaaliya xataa tagay ruuxaantii yarka barnaamijkaas soo tabinaya waa yar dhalasho ahaan Imaaraatiya laakiin wajigiisa aan la arkin taa waxaa sadaqada runta ah ee diintu ina fartay maaha inaad marka wax sadaqaysanayso aad qofka isku soo sawirto maaha marka adigu wax u dhiibi inaad isku soo sawirto ruuxaantii taasi mid yani diiniyahan markan wuxuu tagay Soomaaliya soo arkaysaan لا تعرف مقدارها. رزق نموذج للمرأة المكافحة التي تحاول قدر الإمكان أن تلم شتات عائلتها متحدية كل الظروف، فهي واحدة من النساء اللاتي يشكلن 70% من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع. بسم الله نبدأ سعادة جديدة. soo arkaysaan hooyada Soomaaliyeed halka Fadhiideen ku jooga Soomaaliya jooga magaalo kamid ah Soomaaliya Hargeysa taan maleynaya kadib hooyada dhibaataysan oo rabaa inuu caawiyo wuxuu iska dhigayaa qof laangara ah oo isagu wuxuu u baahan uma sheegayo bal sidoo u filaysan السلام عليكم، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. تكلمين عربي ما شاء الله. شو تبين اختي شو عندك؟ شو هذا؟ هذا مسميه نحن في الصومالي ماخوذ. ما شاء الله هويدا luqad carabiga fahmaysa. مسميه خميره ولا ماخوذ. خميرة. على كم الخميرة؟ هذا ألف. الوحدة كم؟ ألف. الوحدة ب1000. غالية أنتي صراحة. والله مش أنا ما أفهم صومالي. أنت شو قلتي لي شو الكلمة هذه؟ أنا كذا عم تشتري يعني بالصومال. صراحة أريد أشتري بس غالي. يعني أنا عشان أكون واضح معك أنا معاي. أنا كم عندك أنت بنعطيك؟ كم عندي هذا اللي عندي. hooyadu marka ugu horeysa alaab yar waxay iibinaysaa sida u bahalkii oo kale quraac oo kale kadib waxay ku tiraahday hooyo waxaan siinayaa calaashay kun shilin inay Muqdisho taamareen Hargeysa marka hore cafwan maxaa yeelay lacagta kunka shilin badan Muqdisho laga isticmaalaa bal weyn eegna magaalada kadib wuxuu ku raadwaa qaali ma iibsan karo bal waxay ugu jawaabteen eegna عندي هذا 1000 هذا آخر 1000 معاي. kun bes baan istaabay حبتين؟ الحمد لله مش مشكلة بنعطيك. laba xabo ku siinaytay تعمل بدخل يعني يدو آد نلشد وعلى صراحة فتاي أنا متردد أشتري لأن هذا آخر 1000 عندي. كون كي قدام بيان هذا كذا قررت حالك حتى بس الله يجيبها مش مشكلة. أنتي يلا ناخذ خليها غدا وعشاء اليوم. لا ما أنا خذها بتين حتى ما على. متأكدة؟ أيوة مش مشكلة. أكيد؟ عندك كيس شيء ولا لا؟ نحن ما مش مسكونة بلادنا ما عندنا. المشكلة أنا ما معي. في منديل؟ أوكي. متأكد آخذ 2 ب1000؟ مشكلة الحمد لله خذ. أكيد؟ الله بيجيبها ما عليك. والله ولا markii ugu horeysa quraaca waxay siinayso hooyo xabadii ku shilin laakiin markuu ku dhaado inuu lacag ma haysto waxay ku tiri wuxuu ku kunkii ugu dambeeyaan haystaa kadibna waxay tiri okay labadan xabo qaado maxay markii hore laakiin ayadoo cala xabad kun shilin bay siinaysa laakiin hadda laba xabay siisay بالله أكيد الله يجيبها. الله يعطيك العافية. نجربها عاد نجرب الطعم. أنا أعطيتك 1000 ولا لا؟ أيوة أعطيتني. أكيد؟ oo بس dhadhami يبيها شوي شكر زيادة أو عسل عسل ما عندنا عسل. أو الواحد ياكلها مع الشاي. عجبنك؟ شو اسمه؟ أبو بكر. كيف حالك؟
تتكلم عربي ابو بكر؟ نهائي؟ انت من متى ما شاء الله فاتح المشروع هذا؟ هذا والله من يوم جينا احنا هنا نبيع لنا هذا عشان ترزق منه. انت من وين جيتي؟ انا الحمد يعني وين في اي منطقه كنت ساكنه؟ هنا ولا في منطقه ثانيه في الصومال؟ لله احنا كنا في مقدشو. مقديشو marka hore Hargeysana laakiin halkan waa Muqdisho hooyadu ay joogto. وليش جيتوا هنا؟ جينا عشان نترزق يعني الحمد لله بس انا عندي عيال وعيال هناك عندي في الصومال. يعني عندك هنا وعندك في مقديشو. ايوه. طيب انت ليش ما ترجعي يعني؟ هنا انا رجعت مش لازم الحين ابدا يعني وما عندي الا سفر ما سفر ايش بسافر؟ ان شاء الله يحصلنا ان شاء الله بعد. يعني انت ناويه ترجعي لكن ظروفك ما تساعدك. كله خير. ان شاء الله. ابو بكر يدرس ولا لا؟ ابو بكر الحين ابغى يعني حتى ابو بكر ما يدرس. الله runtii hooyada ayuu rabaa inuu caawiyo fiidiyowgu yara dheeri bal waxaan markaa insha Allah iga geeyay intuu ka caawinayo runtii hooyadani waa hooyo aad duruufaysan ilmaheeda yarna Abubakar baa la dhahdaa ma waxna ma dhigto waxay ibisaa quraaca ama ka sad kol baxo taqaanaan runtii nolol adagna way ku jirtaa marka wuxuu isku dayaa bal inuu caawiyo kadibna wuxuu u sameeyay soo sheegay quraaca buu ka iibsanayay €1 ayuu 1 shilin buu ahaa afan 1 shilin buu ahaa dabeetana 1 shilin sidoo sheegay 1 shilin ma haybay tiri bal waxaan eegnaakum واللي في مقديشو كيف مع مين عايشين؟ مع اختي. مع اختك. لان عندها عيال وعيال يتامى عندها زوجها ماسك عيالها الله. مع بعض. هي اختي. الله يعينكم الله يعينكم. طيب انت انا اسف بعد اسئلتي لا ما عليك. بس الواحد زعل ما فيها شيء هذا. انت متى راح ترجعي مقديشو يعني اذا انت ظليتي تجمعي يعني شكرا هذا فرحتني واكله من عندي في الامارات والله. يعني ورقه وين adoo dusini adoo فرحتني اليوم في الامارات. انا فكرت اني فرحتك لاني اعطيتك لاني اشتريت منك. لا شكرا هذا فرحتني واكله من عندي في الامارات والله. يعني فرحتك اكبر لانها من الامارات. لا والله العظيم. الله يرحمه. يا اخي adoo siinaya lacagta sadaqada runtii ممكن تشوفي هذه الورقه؟ انت ما تقرين؟ بس اعرف اسمي فيها. انت تعرفين اسمك؟ بس ايوه شو مكتوب؟ ما اعرف الثاني. مكتوب رزق صح؟ ايوه هذا. ام بكر. ايوه. ام ابو بكر. ابو بكر يقرا ولا لا؟ ابو بكر شوي يعرف عن العربي. طيب هذه ورقه فيها اسمك. اوكي. طيب مسكي ممكن هذه شوي. اوكي امسك لك يا معلم. hadda ayuu sadaqada siinaya runtii ام بكر. ام ابو بكر. عندك بساعدك. ساعديني في شو؟ ما ادري لانك عشان اساعدك امسك لك اي شيء. طيب امسكي هذه. خليها عندك. هذا خليه عندي. ما sha Allah hadda sadaqadii siiyay يا استاذ رزق اللي موجود هني amiin hadday furaysaa ما sha Allah way farxday ما sha Allah soo farxday wadarkiisan hooyadii kulay ما sha Allah ما sha Allah ilaa hadda way ooyeysaa runtii farxad darteed bay loo ooyeysay waxay tiraahday garaweyda hadalkiiba ku dhegay runtii استاذ رزق انا في مره واحد قال لي السعيد ممكن ما يملك كل شيء لكنه يملك القناعه وهذا اللي انا شفته عندك شكرا. وعند كثير من الناس الجميلين البسطاء ايوه شكرا. اللي ابتسامتهم موجوده في كل مكان. الحمد لله شكرا. طيب runtii halkaasaan barnaamijka ku joojinaa
waad arkaysaa maamadii soo farxday maasha Allah tacaala farxad darteed way ooyday wuxuu siiyay runaantii sadaqo aan markastuu sadaqa bixinayo lacagta intay tahay iyo wuxuu bixinay runaantii ma sheego dadka guryuu siiyaa qof kastaaba meesha uu ka dhibaataysan yahay ama wuxuu u baahan yahay ayuu qabtaa warqadna wuu siiyey oo ah sidaan filayo ilmihiida Abubakar oo iskuuliga inuu iskuul tagi doono imikana runaantii sadaqa aad iyo aad u weyn buu siiyey ee ku faraxday hadalku kasoo bixi waayey sadaqada runta ee diinta islaamkana faraysana waa tan insha Allah tacaala waxaan rabaa inaan soo gudbiyo qisada yarkan oo Ramadaanta imika 15 weeyaan daily buu soo saaraa wadamo badan oo islaamka u booqdaa Soomaaliya kamid tahay waxaa jira dhowr barnaamij kale oo Soomaaliya ka sameeyay fadlan waxaan rabnaa insha Allah tacaala qof kasto sadaqa baxshaa inuu ku daydo yarkan qays magaciisa la yiraahdo Imaaraadka aad baan idin salaamay haddaad igu cusub tahay fadlan subscribe ka